Kulankan oo ahaa mid looga adeegsanayay dhismaha Golaha Deegaanka degmada Jowhar oo ah caasimadda Hirshabelle ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle oo kaashanaysa hay'adda CRD, waxaana ka qayb galay ururada bulshada rayidka qaarkood, Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabelle, Wasiirka Caafimaadka, Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe, kan degmada Jowhar, iyo wakiillo ka socday hay'adda CRD iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya. Waxaa looga hadlayay kulanka in magaalada Jowhar ay yeelato golo deegaan si bulshada ay u soo doortaan qofka ay doonayaan. Waxaa ugu horreyn goobta ka hadlay Cabdi Sheekh Doon Nageeye oo ka socday hay'adda CRD. anoo ka mas'uula wasiirka arrimaha gudaha oo runtii mar walba u taagnaa in degmadan iyo degmooyinka ay ka kooban tahay Hirshabelle mar walba loo sameeyo golo deegaan oo shacbigu ay doortaan. marka waxaan rabnaa ayadana in wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirku arrintaas ku dhiiradayna aan uga mahad celino. hay'adda CRD hay'adaha la shaqeynayo waxay diyaar u yihiin inay barnaamijkan bilaabaan dhismaha degmada Jowhar ay bilaabaan doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka deegaanka ay dooranayaan dadkii matali lahaa. Dhinaca kale waxaa ayagana goobta ka hadlay isla markaana dhismaha Golaha Deegaanka degmada Jowhar soo dhaweeyay Gudoomiyaha Ururka Dhalinyarada Gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xiifu iyo Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Shabeellaha Dhexe Madiina Cadow Culi. Golaha Deegaanka dib loo soo cusboonaysiiyo wax aad u fiican waxay muhiim u tahay bulshada degmada Jowhar. waxaan ognahay Golaha Deegaanka in faa'iidooyin badan ay leeyihiin. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo wasiirka wuxuu waqti badan geliyay in dowladda Hirshabelle ay hesho guud ahaan degmooyinkooda golo deegaan. بعد السلام وروح فرحت له إنه وصل محمد هذا قولي ديجانك سو عصبانين تأمم حوله تتابعين تقولها ديجانك Hirshabelle كارهان دقمة الجوهر جودي بدنا لقليي أنت سو شقي سو أنت أصوات تعبرتي وحقق بتنا أبان تري لهذا. sidoo kale waxaa madasha ka hadlay agaasimaha waaxda dhismaha dowladaha hoose ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya Yaxye Cumar Xirsi, duqa magaalada Jowhar Saalax Mudee Cali iyo kusimaha Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow. waxaa dareemi kartaa 2021 oo bishii ugu dambeeyay ku jirto in haddana dib loo sameynayo ayadoo ay dowladda Hirshabelle xiirinayso siyaasadaha iyo odayaasha iyo turista dadka markasta ay ka fogaanaysa khilaaf hor la in bilowdo. waxaan leeyahay wasiirka ha loo garab siiyo golaha deegaanka ama siyaasiyiin ahaadaan ama xildhibaanada ahaadaan ama odayaasha iyo beelahaba. waa arrin aad in loogu farxo ah sababtoo ah golaha deegaanku wax badan ayuu noo tari doonaa insha Allah. waxaan rajaynaynaa in aniga aan ka mudnaan rabaa insha Allah. waxaan aad u soo dhaweynaynaa maanta in dib loo yeelo sidii loo horumarin lahaa ama hore loogu sii wadi lahaa maamulka sameynta ama daadejinta dowladaha hoose. xaqiiqdii wasiirka wuxuu qabtay howlo adag inta ay jirtay. waxaa ugu dambeyn hadalka soo xiray wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladaha Hoose ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle. aasaaska dowladeed ee wax laga bilaabo waa dowladaha hoose. qofku inuu wax leeyahay oo uu asugu xor yahay oo wuxuu rabo uu sameyn karo waxay ka soo bilaabataa dowladaha hoose. laannahu maanta hadda waxaa jooga gudoomiye degmo oo la magacaabay ama maaragtay maayar la magacaabay. laakiin berrito haddaad adinku dooratiin teemkii aad siiseen hadduu 4 sano yahay iyo hadduu 5 sano yahay adinka kaliyaha la xisaabtamaya adinkaana khayaar u leh adinkaa bedeli kartiin cid kaloo idin imaanaysa male. marka ciidaad adinku doorateen oo codkiina aad ku doorateen oo la xisaabtamaysiin oo markaa rabtiin xilka ka qaadaysiin inaad heshiina laga maarmaan ah adduunkuna saasay rabaan. Ibrahim Cali Nuur, TV-ga Universal, Jowhar.